saaka waxa uu soo kacay la dhahay gabar iskoole ay imaatay waxa la dhahay maamada ilmahaada meeshooda xaq yaalo afahina dheeraadaya waxa laga helayaa dhacdo argagax leh oo xalay ka dhacday duleedka caasimadda Muqdisho taasi oo lagu dilay caruur walaalo ah sida ay noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka ah caruurta ahaa wiil iyo gabar ayaa waxa da'dooda kala heeday 5 sano jir iyo 7 sano jir waxaana saaka meedkooda laga helay xaafadda jaamacadda Shabeelle oo ka tirsan deegaan weynaha Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho qaar kamid ah helada caruurta la dilay ayaa inoo sheegay in wiilka iyo gabadha yar xalay adeeg loo diray balse la waayay iyadoo saaka dib loo helay meedadkooda sidoo kale dadka soo arkay meedadka labadaas caruurta ayaa sheegay in si arxan darro ah loo dilay isla markaana mid kamid ah caruurta xirig lagu sirqiyay halka midka kale ilkaha ay ka daadsanaayeen taasoo ay ka argagaxeen dadkii deegaanka iyo heladooda caruurta ayaa la sheegay inuu dilkooda ka dambeeyay adeerkood oo qabay hooyadooda wararka ayaa intaas ku daray inay goobta gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dawladda Soomaaliya waxayna xireen saygii qabay hooyadii dhashay caruurtaasi kaas oo lagu tuhmayay inuu geystay falkan waxaana haatan ku socdo baaritaano dheeraad ah ilaa iyo hadda ma jiraan wax hadal ah ama faahfaahin oo hay'adaha ammaanka ka bixiyeen dhacdadaasi xanuunka badan dhacdooyinkani xanuunka badan ayaa maalmihii la soo dhaafay caado ka noqday magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan